Warar aan wanaagsaneyn ayaa ka soo yeeraya Itoobiya ama xaaradii iyo canfartii waxay ku cawanayaan dunida oo dhan baaq la yaab leh ayay soo saareen war naga celiya Tigray war kaalaya naga qabta aawe Mareykankii qaramadii midoobay iyo dalalkii kale ee wada hadalada waday haddaba baaqaas ayaa ka soo yeeray xaaradii canfarta maxay tahay diyaar garowga qarsoon oo ay maxaradu wado iyo baaqa iyo ooyinta isku dartay warbixinadaas ee barnaamijkeena saxbiyaal si gaar ugu eegi doona oo aynu ku falaaqeen doona hadii eebaweyne uu qadaro dowlad deegaanka ama xarada war ayaa ka soo yeeray si la mid ah canfartii war ayay soo saareen oo ku aadan dagaalada Itoobiya waxaana ay leeyihiin waa in laga qabtaa Tigray waxa ba'aya dadkeenii oo baaba'aya war-saxaafadeedka ka soo baxay dhanka la yiraahdo maamulka dowlad deegaanka ama xarada ee Amhara region ayaa guud ahaan shacabka ama xarada loogu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal waxaana beesha caalamka si af ah loo sheegay inay Tigray celiyaan oo ay dagaalkan u yahay mid lagu baabi'i doono war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxa loo diyaar garoobayaa sidii loo heli lahaa diyaar garow ku haboon oo looga gudbi karo weerarka TPLF haddaba xukuumadda deegaanka ama xarada waxay soo jeedinaysaa dhammaan shacabka ama xarada inay u diyaar garoobaan baaqa ka soo yeeraya maamulka deegaanka iyo inay sameeyaan diyaar garow kasta oo ku haboon baaqan shacabka loo diray waxa ka horeeyay baaq caalami ah oo Mareykanka iyo qaramada midoobay loo diray oo lagu leeyahay waa in marqaati aad ka noqotaan weerarka ay soo qaadeen Tigray awoodda ay nagu faanayaan iyo dagaalada ay soo qaadeen maamulka deegaanka ama xaradu waxa dadku ku booriyay inay taageeraan hawlaha lagu difaacayo madaxbannaanida dalka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan canfartu dhankeeda war ayay soo saartay xisbiga barwaaqo ayaa sidoo kale ku baaqay in shacabka Tigray inaysan ogolaan loo isticmaalo madfaca ay adeegsanayso TPLF sida lagu yiri hadalka ka soo baxay xisbiga BBB ee uu ka tirsan yahay Abiy Ahmed Cali sidoo kale warar kale ayaa ka soo baxay oo dhanka loo eego markii canfarta la eego dhankeeda war ayaa ka soo baxay waxaana ay ka soo baxayaan wararkaasi deegaanka canfarta iyaga oo ku baaqaya in dagaalada la joojiyo oo ay dhinacyadu ay ugu baaqayso in ay dagaaladu u weeciyaan dhanka kale canfartu dagaal uma diyaarsan hadda laakiin Tigraygu dhankoodu diyaar garow weyn ayay muujiyeen waxaana ay rabaan markan inay ka tallaabaan dhul ballaaran oo ay November sanadkii hore ay ka tallaabeen taas oo u suura gelisay inay u dhawaadeen caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa dagaalo culus ayaa socda waxaana u dhaxeeyaan ciidamada dawladda oo garab ka helaya labada maamul ee ama xarada iyo canfarta ciidamadooda maleeshiyada iyo TPLF oo dhinaca waxaana la sheegayaa in dagaaladu deegaano cusub ay kula wareegayaan dhinacyadan maadaama ay yihiin kuwa aad u adag dagaaladu hadda waxa la leeyahay dagaaladu waxay ku siisiqayaan dhul ballaaran oo ama xaray leedahay isla durbadiiba ama xaradu waxa laga qabsaday dhul iyagu ay maamulayeen iyo deegaano iyagu ay leeyihiin waxaana sidaasi soo warinaya warbaahinta Tigray way leedahay inkastoo militariga Itoobiya ay bilaabeen in ay iska difaacaan oo ay iska celiyaan dhinacyada haddana waxaa jira khasaare baaxad leh oo dagaaladu ay ka dhasheen oo soo gaaray dhinacyada dagaalama maadaama dagaalku la isku adeegsaday hub iyo madaafiic aan loo meeldayn shacabkii ayaa isaga cararay goobahaas oo dhan oo dib isaga baxay maantana waa maalinkii afraad oo dagaaladu ay sii socdaan haddii markan aynu eegno dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ballanqaad rasmi ah ka helay dowladda waddanka Japan kadib safar uu halkaasi ku joogo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo haatan ku sugan magaalada Tunis ee dalka Tunisia ayaa kulan gaar ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Japan iyo Shema Hayashi xilli uu dhinaca kale socdo shirweynaha caalamiga ah ee Ticket Aid ee u dhaxeeya dowladaha Japan iyo Afrika ra'iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale Yoshamaza ayaa kulan doceedyo ay yeesheen waxay uga hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga ah iskaashiga iyo wada qabsiga u dhaxeeya labada dal oo Soomaaliya iyo Japan wasiirka arrimaha dibadda Japan oo madasha ka hadlay ayaa u ballan qaaday in ra'iisul wasaare Xamse iyo in dowladdiisuba ay diyaar u tahay inay xoojiso xiriirka ganacsiga amniga iyo midka siyaasadeed oo ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa intaasi sii raaciyay in ay gacan ka geysan doonaan barnaamijyada horumarineed ee wax loogu qabanayo shacabka Soomaaliyeed dhankiisa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahadceliyay dowladda Japan taageerada dhinacyada badan leh ee kala duwan oo ay siiso Soomaaliya Japan ayaa ka mid ah dalalka taageera Soomaaliya waxaana xiriir wanaagsan la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana kulan doceedyada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Japan ay yihiin kuwa aad loo hadalhayo laguna gorfeynayo aragtida siyaasadda iyo sidoo kale qaabka ay Japan u taageeri lahayd Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa safar maalmo qaadanaya ku jooga Tunis halkaas oo qayb ka yahay safaradiisa caadiga ah
dhanka kale haddii aynu eegno booliska gobolka Banaadir ayaa howlgallo ka sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo ku baacsanayay rag burcad ka geysta ama rag dhac ka geysta Muqdisho oo burcada iyo sidoo kale xubno kale. ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa xalay ilaa saaka howlgallo culus ka sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka Yaaqshiid iyo Warta Nabadda. howlgalladan waxaa lagu xaqiijinayaa ammaanka iyadoo lagu soo qabtay rag badan oo dhalinyaro ahaa oo qaarkood eedeysanayaal ahaa kuwaasoo lagu tuhmay falalka amni darrada inay qayb ka yihiin. dhalinyarada qaar ayaa la sii daayay oo waa laga shakiyay kadib baaritaano ay ku sameeyeen ciidamada ammaanka halka kuwa kalena la geeyay saldhigyada booliska ee labadaasi degmo. ciidamada ayaa sidoo kale baarayay gaadiidka iyo xaafadaha qaar ee degmooyinka howlgalka laga sameeyay si loola socdo dhaqaaqa guud. ujeedka ayaa ahaa mid ay ciidamada ammaanka ugu guurgalayeen ammaanka Yaaqshiid iyo Warta Nabadda sida ay shaaciyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka. sidoo kale waxay intaasi ku sii dareen saraakiishu in ay sii wadi doonaan dhaqaaqyadan inta la xaqiijinayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho. gudoomiyaasha labada degmo ee howlgallada laga sameeyay oo qayb ahaa baaritaanada ayaa u mahadceliyay ciidamada ammaanka iyo deegaanka oo dadka deegaanka weeyaan oo la shaqeeyay in ay helaan xogo macluumaad dheeraad ah oo la xiriira ammaanka magaalada iyo degmooyinkan. maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada ka socda caasimadda kuwaas oo lagula dagaalamayo burcad hubaysan iyo ciyaal weerarada oo falal amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho, taas oo ay sheegeen in ay dhibaato badan ku haysaa inta badan qaybaha bulshada ku dhaqan gobolkan Banaadir. ciidamada ammaanka ayaa la bajibaaray weeraradooda ay ku beecsanayaan raggan iyo sidoo kale howlgallada qorsheysan oo ay habeen iyo maalin ka sameynayaan magaalada Muqdisho. inta badan degmooyinka waqooyiga ku yaala sida Karaan, Hilwaay, Yaaqshiid, Warta Nabadda, Cabdilcasiis iyo degmooyinka kale waxaa ka jira falal amni darro oo burcad iyo ciyaal weerar ah, inkastoo degmooyinka dhexe ee magaalada ku yaala aysan ciyaal weerar qabin balse burcadu ay ka jirto. laakiin ciidamada ammaanka ayaa bilaabay in ay beegsadaan oo ay baadigoobaan raggan burcadda ah. inta badanna degmooyinkan ayaa lagu soo qabtaa marka howlgallada la sameeyo rag lagu eedeeyo in ay qayb ka ahaayeen xubnaha amni darrada ka waday. inta badan degmada Karaan oo ah degmo ama ka mid ah degmooyinka dhaca waqooyiga ayaa ah degmada ugu daran oo ciyaal weerar ay joogaan, waxaana jira goobo ay dadkii deganaa ay ka qaxeen ciyaal weerar amni darrada aawadood ah, taas oo ay ciidamada ammaanka ilaa iminka waxba ka qaban oo ay weli taagan tahay. ciidamadu waxay ku faaneen oo ay ku goodiyeenba in ay soo afjareen ciyaal weero oo ay tallaabooyin hor la qaadi doonaan haddii ay jaanis ku helaan ama ay helaan fursad ay kaga hortagaan dhammaan waxyaabaha la dego ku ah ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho. guud ahaan saaxiibayaal halkaas aynu kusoo gabagabeynaya barnaamij shureedkeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doonno saaxiibayaal oo bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.